لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سود هذا شعبك الصومالي ميل والبعد جوبتان مالي ونكسم بان إذن لا يهي رمضان كريم بان إذن لا يهي حالة الدلك الصوماليات بربعين إذن لو ذاك وركي قدام بي تاني حالي كلب جهورير فرب بدن باتاغان سادرين سنتين الله سعوتان ومضوالا oo yani muxuu aan xishoonaynin ba ilaahay wax noogu daray hasi ahaatee dalka yani dawlad buu leeyahay ciidan buu leeyahay waa dal dhisan oo qaran ah hadduu ilaahay kuureen waqtigii jiingadaha la fuqsan jiray laamiyada la qodan jiray gabdhaha la kufsan jiray hantida dadweynaha la dhici jiray moobeelada la iska qaadan jiray waa laga soo gudbay dalka dawlad buu leeyahay dawladda awaamirteedii baana shaqaynayso amarka dawladda ayaa shaqaynayo amarka taliyaha guud ciidamada booliiska Soomaaliyeed baa shaqaynayo amarka taliyaha guud ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa shaqaynayo ma sha Allah waqti karan haysta okay waxaan rabaa inaan idiin sheego shacabka Soomaaliyeed meel walbo caalamka ka joogtaan tuugadan iyo annaka ilaahay baa isbaday xishood ma lahan dadnimo ma lahan yaani xildhibaanka ah wuxuu u xubsiibanayaa mooryaanimo iyo tuugnimadii uu bartay baa u muuqato ya darajada xildhibaanimada loo dhiibay waxa kaga qiimo badan mooryaanimo iyo tuugnimo teeradii dhaxda intay tagaa teeradii aan dhex joogna oo si yani muxuu ahaa airport intii laga soo galo dhinaca hadduu ilaahay ku roon yahay muxuu ahaa dhinaca dadweynaha ay ka soo galaan airportka oo diyaaradaha domestic flight-ka tigidyo beenbeentii la soo goosto ayaa gudaha la soo galay ma garad markaas waa isku sawira teerada raba inaan isku sawiro ya CBB baan rabaa inaan istusiyo CBB baan rabaa war CBB waxay hubtay haysata yaa rasuulullah ya magar CBB waxay hubto ayay haysataa CBB waxay leedahay ciidan qaran bay leedahay ciidan qaran ayay leedahay magar xalay ayaan idiin sheegay wax doorasho ah oo dhici karo haba yaraatee ma jirto shirjiraayad baan qabtay generaalka ayaa gadaashay hadlay magarad generaalka ayaa gadaashay hadlay xogtii u dambaysay baan idinla wadaagay mooryaantan marka oo yani muxuu ahaa aan xishoonaynin oo waxaan taariikh xumada ay ka qaadi doonaan oo aad la yaabayso markii hore waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah laba nin waa mooryaan ninna waa ciilqab waay ayaa midna gudoomiye ahaan ay u doorteen qoladii guddiga ahaa maarka arrimaha doorashooyinka qaabilsana Abdirasaaq bay doorteen oo beesha xawaadlo u dhashay oo argagixisaa oo la yaqaano odaygii mooryaanka ahaana mar hore ayaa waxaa looga dhigay gudoomiyihii kumeel gaarka hadduu ilaahay ku baarlamaankii baa laga dhigay labadaas nin baa la isugu daray meesha ayada ahayd soo inay guddigii oo Soomaaliyeed meel gobol walba ka soo jeeday 10 qof shanta beelood ee Soomaaliyeed laga soo doortay oo 6 dantoodii iyo xuquuqdoodii mar walba in la boobo la rabo 6 ayagoo kamid ah sida dir oo kale iyo raxan weyn iyo beesha shanaad ya hatta waxa ku jiro nin guddiga kamid ah Marixaan baa jiro ya hatta nimankan u raaci lahaa maxaa idin geeyay inaad doorataan ninka noocan oo kale doorashadii aqalka sare dad sharaf leh ayaa loo baarka muxuu loo qorsheeyay sad la socotaan gaagaab iyo aadan cabdinaasir oo koonfur galbeed ka soo jeeday ya ayaa loo doortay doorashadii si sharaf leh oo xurmad leh oo ismaac salaameen ismarxabeen bay ku dhamaatay mooryaantan meelay wax u wada adigi garo meelay wax u wadaan maanta hadii la weydiiyo maxaad rabtaa hadii liiraad kama jawaabi karaan waxaan waa jawaab kooban aan siiyo oday xuno kori hoos ka cadaaday
oo xildhibaanada koonfur galbeed u gafay baan rabaa inaan jawaab kooban siiyo. horta haddaad al-shabaab aad igu cayso al-shabaab haddaad igu cayso al-shabaab ninkii dhalay waa adigi xasan daahir aweys baa al-shabaab dhalay aduuna kula dhashay aduuna kaa dhashay marka ugu horayso nashuuzalir intay ku nabtay nabiga kaaga hormartaa odigii kor iyo hoos ka caddaaday oo xildhibaanada koonfur galbeed yidhi waa al-shabaab xildhibaanadaas ayaga koonfur galbeed kuwa isku raacday waay annakaa dooranay annaka ayaan dooranay tubadii malabka heedoo dhuuqu jirtay 30 sano inay kaa jaraan bayna go'aankooda u yahay meel ay u laabtaan haba yaraatee ma jirto meelaan maanta aan u laabano xildhibaanadaas koonfur galbeed caasimadoodii Soomaaliyeed bay joogaan buulo eelay bay dhex joogaan dalkan ayaga innal arla yurithuha man yashaa ya magard ardadan ilaahay mutaqiintiisii baa dal ayaa dhaxlayo oday mooriyaan ah 1 kilomitir ka yimid 1 kilomitir soo jaray oo kori hoos ka caddaaday maantayto maalintiisii ma ahan maanta maalintaada ma ahan adeer macan magard maanta maalinkaad xildhibaanadii koonfur galbeed dib u laabta aad dhihi lahayd ama intay dhar mana boorsada ay qaataan kuwan kuwii noqonaya ma ahan xildhibaanadan deegaankoodii bay joogaan koonfur galbeed calankeedii baa madiine ila jasiiru ka babanaya eeraboorkaas magaalada muqdisho ku yaala aadacadda qiib ka mid ah waa koonfur galbeed waay diyaaradii meesha lagu hay soo dhigato waa koonfur galbeed waay baryana magaaladan kuma joogaan mooriyaan haddii indhacdeeskeedi wax laga maqlaayo goor hore wax laga maqli lahaa goor hore ayaa wax laga dhegaysan lahaa filim mooriyaan ayaa maanta kuu shidan aniga meelaad joogtid ma ogi laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa xildhibaanadan kuwii guryaha islaameed aad taabsatay kuwii kaa saari lahaa waay kuwii deegaankii adig aad ka timid ood ka soo qaxday ood ka timid dib kugu celin lahaa waa kuwan waay kuwa maanta aad leedahay waa shabaab aad leedahay hadday shabaab kula noqdeen iyo hadday dad caadi kula noqdeen aday kuu taalla kuwan kuwii dib u dejin kuu samayn lahaa waay transportation kuu raadin lahaa UNHCR la kaashan lahaa deegaankii aad ka soo hayaantay dhagaxaantii korkoodii aad ka timid markaad soo qaxday oo soo gashay magaalada muqdisho kuwii dhagan cilin kuu samayn lahaa waa xildhibaanadan koonfur galbeed laga soo doortay jawaabta odigii koray hoos ka caddaaday ee gurmud dhar aan soo dhex dhigay ugu talagalay uqdudii ciilqabka ku jiro iyo carada haysato ayaa raba inaan jawaabtaas gaalabta inaan siiyo ayaa go'aankaygu ahaa waxaan idin leeyahay soomaaliyey mooriyaantan indhaha cad annaka go'aan baan gaarnay haddaana xildhibaanada koonfur galbeed hadday xildhibaanada koonfur galbeed go'aanba meel u yaallo sababtoo ah dhallinyaradan yaryar aad u jeeddo oo da'doodii kan u weyn 30 jirka ah waxaa loogu talagalay inay dib ay kuu celiyaan waay go'aankoodii waxa waaye inay magaaladii aad ka soo hayaantay meeshii aad ka timid meeshii adigi iyo doonfaarka aad ku dagaalami jirteen oo baash muxuu ahaa go'sada isku dagaali jirteen asalkaaga kullu shay yarjiw ilaa aslihi dhulkaagaad barakaysanaysaa magard nin baad leedahay deegaankaagii baad dib waad laabanaysaa xaggee aadaya waaba koonfur galbeede bal meeshay u socdaan sheeg magaaladan buule elay bay ku taallo ma buuladii aad leedahay bay ku taallo xildhibaanadan kuwii tarabuunka dhulka dhigi lahaa waay oo gacantii dowladda ku soo celin lahaa waay xildhibaanadan waa kuwii tarabuunkii aad dhisatay tarabuunka aad dhistay villooyinka aad ka dhistay kuwii dhulka dhigi lahaa waay xildhibaanadan ku bishaarayso odigii kori hoos ka caddaadayow magard dhulka kuwii dhigi lahaa waddooyinkii aad xirtay kuwii furi lahaa waay guryihii danta guud aad dhisatay kuwii kaa saari lahaa waay kuwii hee kaa saari lahaa waay xildhibaanadan kuwii waxaa waaye hantidii ummaddii Soomaaliyeed adiga aad barakicisay dib inay u soo kuwii dib u soo celin lahaa waay magaalada muqdisho dib u keeni lahaa waay dadkii aad barakicisay oo aad cuntay oo aad guryahooda ku dhex aastay yaa oo aad ku soo duushay oo aad laysay kuwii ayaga ahaa waay xildhibaanadan kuwii hadduu ilaahay kuu roon yahay kuwii isbitaaladii qalabkii aad ka dhacday dib kaaga soo celin lahaa waay warkaasoo kuma galo warka waa maqashay soo maa meelay u socdaan hab yaraatee ma lahan meelay u socdaan ma lahan mooriyaan marka waxaan ku leeyahay habeenna tabarta maalinna taagtaadi ma garad geedkaad doontid ka soo miro guro
xildhibaanada sharafta ee koonfur galbeedna go'aan arrinta hadallada noocan oo kale dhiirigelin bay u noqonaysaa go'aan adag bay ka qaadanayaan dalkoodii bay difaacayaan ma garatay xabad haddii la yidhahdo jiid horay kaaga jiraan way kaa caafimaad badan yihiin xaaraan laguma soo korinin guri xaaraam laguma dhex dhalin guri xaaraam ah gudihiisa laguma dhalin aabba xalaal baa lagu dhalay xalaal miirad waay ma garatay xalaal miirad waay maanta waxaa laga yaabaa gabadhaada odigaaga kori hoos ka caddaadayow gabadhaadii baa kugu xirmaysa markaad guri xaaraam aad ku dhex dhasho guri xaaraam ah oo muslimkii lahaa ay ka qatan yihiin oo ay bannaanka ay joogaan yaa gurigaas xaaraamta ah markaad gabadhaadii adiga ay kugu xirmaysaa laakiin kuwan xalaal baa lagu soo koriyey misigaa lagu soo koriyey muruqii aabbahood ay ku soo koreen ma garad yacni waxaa waaye nolol wanaagsan bay ku soo koreen maantayto kuwii ilaahay subxaanahu watacaala khayrka waafajiyey shantooda salaad bay tukadaan gacan ku dhigliyaal ma ahan daraskoodii hadduu ilaahay kuu roon yahay yacni muxuu aha guryahooda kuma aasin guryahoodii daraskoodii ma aasin gabar iyo hooyada isla dhashay ma soo kufsanin gabar iyo hooyo isdhalay ma soo kufsinin hamarweyne gudihiis intay dhexgaleen dadkii masaakiinta ahaa hantidoodii dahabkoodii ma dhicin ma garad waxaad ku hadashayna qof xaaraan jirkiisii ka badatay unbaa ku hadlo marka xaaraantii markay badatay oo ay fatahday sidii webiga afgoy oo kale hadday kugu noqotay hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala meel buu kuu diyaariyey meeshuu kuu diyaariyeyna waad gelaysaa warkan sooma caddo warkan war cad sooma yaa dalka dowlad buu leeyahay dowladda go'aankeedii baa lagu soconaya wax dhaqdhaqaaqa iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay qar iska tuuridaa ma jirto odigiyo meesha ku soo sawiray baan arkayay odiga asaga ah ee 90 jirkii mooryaanka ahaa khaa'imul waddanka ahaa nolosha khiyaaliga inuu cimrigiis ku dhamaysto uu rabo warkiisi waa la diiday hal xildhibaan oo Soomaali ah oo doorasho soo aaday ma jirto taada kale inay doqomo ay yihiin war haade war xildhibaanada ma guryaha ay degan yihiin ka soo wadaysaan ma uu soo socdaan doorasho dawladdii baa dib u riday doorashada in laga tiro baday soo moogid meelaha xildhibaan bad soo heshay kooranku soo buuxisay mooryaantay yaa 24 xildhibaan bad leedahay gadooyin baarlamaan door balan ku arkay adiga 24 xildhibaan markaan hoos aan u daadegno inta qasku wado sanbalulshe yani beesh walaalaha xawaadle oo qaskan ayana qiib ka noqday yaa beesh walaalaha xawaadle qaskii qiib ka noqdeen waad aragtay Sooma iyo raahidkay beesh murusade oo seedigay xildhibaannimadu ka jeceliyay tuugnimo iyo mooryaannimo iyo hadduu ilaahay ku roon yahay beer qof uu leeyahay sabuul gilay laga xado uu ka jecel yahay ayaa waxaan arkay teenadii ay tageen isku dardarsada bal xawaadle meegu leeyahay xawaadle meega xildhibaan muu leeyahay bal ii soo sheeg waryahay hadday ugu bataan 10 ugu dhig raahidkayga murusadana 10 ugu dhig habar gedin waxaad ugu dhigtaa ayagana waxaad ugu dhigtaa yaa 16 ugu dhig macal dudubleeda ku dar waa imisa 26 xildhibaan marka guddoon baarlamaan doorta bal idinka ordaha doorta guddoon baarlamaan yaa sidaasaad laangaab u tihiin sidaasaad u yar tihiin sidaasaad u dulaysan tihiin dalkan doorashadiis dad baa hoggaanka u hayo doorashadan koonfur galbeed baa hoggaanka u hayso sanadkan xabeen la isugu sheegaya koonfur galbeed ayaa dalkan hoggaan u hayso doorashadiis koonfur galbeed oo doorasho ka soo go'ay wallaahi oo billaahi talaa inaysan Soomaaliya doorasho ka dhicin xalay maxamed abuukar baa hadlay wasiirkii hore amniga koonfur galbeed oo hurdila'aan ku riday mooryaantii xalay markuu hadlay hurdila'aan baa ku dhacday waxay soo xasuusteen oo qalbigoodii marnaba ka go'i waayey yaa qalbigoodii mar walba wuxuu soo jamadaa mar walba waxay soo xasuustaan baraawe darihii baraawe yaa noloshii baraawe ay ku haysteen bay soo xasuustaan yaa tuugo oo laga soo matajiyey sidii baraawe kaaga soo saaray oon kaaga soo matajiyey ayaan kaaga matajinaya masiirka ummadda Soomaaliyeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi magar tii baraawe xasuustaan sama odiga kori hoos ka caddaaday
qaqaqaqaqaq uu leeyahay maxamed abuukar xildhibaan federaal way annakaa soo dirsanay waa libaax qaran waa ma garad hadalkiisii baan wada qabnaa kulligeennii shirkiisii jaraa'id asagoo ah xogayaha guud ee guddiga tiisii baan wada qaadanay Soomaali haddaan nahay maxaad ka bedeli kartaa doorasho oo aniga iga soo go'in ma dhici karto ummadina ay waata loo baahan yahay 26 xildhibaan oo reexidkayga ah 10 ay murusada yihiin iyo 10 xawaadla ah iyo 10 ili habar gidir ah doorasho qabtaan taanada ku badbad haday rabaan ordaha banooni ku ciyaar taanada gudaheeda taanada dhaxdeeda banooni ku ciyaar baladinka wax doorta balaan aragnay yaa 26 gudoomiyaha baarlamaanka waxa u doorataan dhabanacad gudoomiyaha baarlamaanka ka dhiga dhabanacad gudoomiyaha baarlamaanka ka dhig mii fahamtay ku xigaankana Jaafar ka dhig sambalolshin waxaad ka dhigtaa ku xigaanka saddexaad ka dhiga bal yaa adeer macaan hoteelka barkiinti baa la wada dheeraystay waa la seexday xildhibaanada xalay koonfur galbeed mid walbo xalay si loo sheekaysanayay 9 saac markay ahayd bay seexdeen nin kasta wuxuu rabaa inuu ilaa uu afurka laga gaarin inuu hurdada ka soo kicin waa la wada jiifaa xildhibaanadii dirta waa jiifaan xildhibaanadii dirta waa jiifaan xildhibaanadii hadduu ilaahay ku roon yahay beesha shanaad way jiifaan xildhibaanadii daaroodka beesha daarood oo gebigood waa jiifa ilaa xishooda la isku dhaafay nin daarood oo qaaq dhahay mid aragteen ilaahan kugu dhaarshay nin daarood ah oo darbi taagan oo dhagax tuuraay oo qaaq ku ay mid aragteen waa maya yaa xishooda la isku dhaafay hala dhaqan xumaa daaroodka qaarkiis ha dhaqan xumaado ha eebdarnaadaan wax walba ha sameeyaan yaa waxaad moodaa inay ka xishood badan yihiin way ka xishood badan yihiin xishood bay leeyihiin waxooda afkooda sababtoo ah labadoodii bas kala fiiri yaa gaagaab lacag uma yaro lacag uu qaatay laakiin farsamo reer magaal buu ku qaatay yaa tolkiisi ceeb uma soo jiidin ehelkiisi ceeb uma soo jiidin sumcadiisi muusan baabi'inin sumcaddii gaagaab sumcadiisi muusan baabi'inin si sharaf leh wixii isku qaatay yaa 9 jirkan wuxuu la soo istaagay laaloosh haliisi anaa dhaarina $150,000 haliisiyo wiilashaydi xildhibaanadeedi aabihiina nahay aniga soo igama yani waa waxaan xishoonaynin waay waa maxishoode oo laadir ah oo ku ciraystay mooryaanimo iyo tuugnimo shaqaan ku jiraa aad baan ugu xumaa inaan u dhammaystiraan rabay laakiin inaan dib ugu soo laabto waa laga maarmaan waay dalkan doorashadiisa ma dhici karto koonfur galbeed aan ka soo goyn beesha walaalahay indhaha ha furaan dhagaana ha furaan ma garad yaysan isdaalinin yaysan iswaalin yaysan isdaalinin waa iga talo إن شاء الله تعالى ما سنتين شقان كل جرنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها إسدالنين